dowladda Spain ayaa ogolaatay qorshayaal lagu siinayo aqoonsi 500,000 oo muhaajiriin ah oo aan sharciyeysnayn, taas oo ogolaanaysa in si rasmi ah loogu diro shaqada. Ra'iisul Wasaare Pedro Sanchez ayaa go'aankan dowladdiisa ku tilmaamay mid ah fal cadaalad ah iyo ururin daruuri ah oo ay u baahan tahay Spain. Qoraal uu diray dadka reer Spain oo uu soo dhigay baraha bulshada, Ra'iisul Wasaare Pedro oo ah nin hanti wadaaga ayaa sheegay in sharcigan guud looga gol leeyahay in lagu qiro xaqiiqda ku dhawaad nus milyuun qof oo haddaba ka qayb ah nolosheena maalinlaha ah. Xisbiga mucaaradka ee conservative-ka ee dalka Spain ayaa ballan qaaday inuu isku dayi doono inuu hor istaagi doono sharciyeyntan, iyagoo sheegay inay dhiirigelin u tahay muhaajiriinta sharci darrada ah ayna keeni doonto in qaar kale oo badan yimaadaan. Qorshaha dowladdu wuxuu muhaajiriinta bilaa waraaqaha siinayaa ogolaansho deganaansho 1 sano ah, kaasoo dib loo cusboonaysiin karo si ay ugu qalmaan codsadayaashu waa inay caddeeyaan inay Spain ku noolaayeen muddo 5 sano ah, isla markaana ay leeyihiin diiwaan dambiyeed nadiif ah. Waxay haystaan inta u dhaxaysa 16 Abriil ilaa dhamaadka Juun si ay u soo codsadaan. Mr. Pedro waxa uu sheegay in muhaajiriintu ay gacan ka geysteen dhisidda Spain tan hodanka ah, furan oo kala duwan, taasoo maanta nahay hankeenuna yahay. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in muhaajiriintan u baahan yihiin si loo joogteeyo dhaqaalaha iyo adeegyada dadweynaha ee dadkiisu sii gaboobayaan. Waxa kale oo uu sheegay inay tani tahay dariiqii saxda ahaa ee qarankan, iyadoo horay dad badan oo u dhashay Spain ay ugu haajireen dalal kale si ay u helaan fursado ka wanaagsan kuwa dalkooda. Xarunta cilmi baarista ee Fancas ayaa qiyaastay in Spain ku sugan yihiin ku dhawaad 840,000 oo muhaajiriin bilaa waraaq ah, kuwaas oo badankoodu ay u dhasheen qaaradda Latin America. Tani waxay faa'iido u noqon doontaa dad badan, waxayna sii doontaa fursad ay ku shaqaystaan iyo nolol tayo leh, ayuu yiri Ricardo oo ah nashqadeeye garaafyada oo u dhashay Bolivia, kaasoo aan awoodin inuu helo shaqo sugan, qorsheynayana inuu codsado nidaamkan. Waxaa kaloo ay ka dhigan tahay lacag badan oo u soo xirooto dowladda Spain iyo shaqaale badan oo si sharci ah ay u heli karaan loo shaqeeyayaashu. Mucaaradka ayaa sheegay in qiyaastii dowladdu ay khaldan tahay, ayna suurtagal tahay inay 1 milyan oo muhaajiriin codsadaan nidaamkan, iyadoo xisbiga PP uu qorshahan ku tilmaamay mid laga cadhoodo. Kaniisadda Kaatooliga ayaa dhankeeda taageertay sharciga dowladda. Nidaamkan ayaa imaanaya xilli qaar badan oo ka mid ah dariska Spain ee Yurub ay adkeynayaan xakameynta socdaalka. Dowladihii hanti wadaaga iyo kuwa PP labaduba waxay horey u hirgeliyeen cafisyo dhanka muhaajiriinta. Midkii ugu dambeeyay waxa uu ahaa 2005 markaas oo 577,000 oo qof ay deganaansho heleen xilligii uu jiray maamulkii hanti wadaaga. Tirada ugu badan ee muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee hadda ku nool Spain ayaa la rumaysan yahay inay ka yimaadeen Colombia, Peru iyo Honduras. Dowladda isbahaysiga hanti wadaaga ee Spain ayaa kaga duwan dalalka kale ee waaweyn ee Yurub arrintan, iyadoo hoosta ka xariiqday muhiimadda ay muhaajiriintu u leeyihiin dhaqaalaha. dalku wuxuu ka waxqabad fiicnaa dalalka kale ee dhaqaalaha waaweyn ee midowga Yurub sanadihii u dambeeyay, iyadoo la filayo kobac dhaqaale oo ku dhow 3% sanadkii 2025. Shaqaalaanta oo ahayd ducufnimo muddo dheer soo jirtay oo haysata dhaqaalaha Spain ayaa hoos uga dhacday 10% markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2008, sidoo ku cad tirokoobyada ay soo saartay hay'adda tirakoobka dalkaas maalintii Talaadada.